وكوين كي أنا ندي قلبي درت لحظة وقتها صوب جديد وكقول لي وكقبص هونقاد إسكاله عاقل هكوجرو أنا طوالت رأيك كفر هونقاد إسكاله كيف أنا مرغاتي هونقاد إسكاله كيف جارت شعب رمضان هذا تاي كورن غاريان يا إسكاله غاري كان دولة كينيا إسكاله أيه وابكي دت كان هونقاد لله إسكاله دفاع كل جري سماها وابا أيه دولة الصومالي وقولست الصومالي أنو لا kulanti waxaan oo wanaagsan daawada ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta oo maanta inta badan ku eegi doona arrimaha Soomaaliya qodobada barnaamijkana waxaa ka mid noqon doona maxay tahay sababta dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ciidamada Jubbaland ay ugu dagaalameen deegaano ka tirsan gobolka Gada gaar ahaan degmada Beled Xaawo maxayse tahay walwalka iminka ay qabaan shacabka ku dhaqan magaalooyinka Mandheera iyo Beled Xaawo maxaa xigi doona kadib dagaalkii ka dhacay magaalada Beled Xaawo iyo saraakiisha ciidanka Jubbaland ee u goosta dhanka iyo degmada Mandheera wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada ee lagu dagaalamay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona dagaalkii dawladda federaalka ee Soomaaliya ee magaalada Dhuusamareeb isdhiibitaankii ahlu sunna ee gabi ahaanba ay sheegeen inay ka tanaasuleen arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha ay kaga dhigan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobadaas iyo waxyaabaha kale ee ugu waaweyn siyaasadda gudaha ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijka qaybaha hore kusoo dhawo barnaamijka mar kale waa 3 bisha 3 sanadka 2020 iminkana u diyaar garow barnaamijka inta ka faahfaahsan marka hore waxaan eegi doonaa xaaladda guud ee magaalada Shalay lagu dagaalamay waxa maanta xaaladda ganaashi ah laga dareemayaa degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado halkaasi oo shalay dagaal saacado qaatay oo ku dhexmaray ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dhawaan degmadaasi ay geysay iyo kuwa maamulka Jubbaland dagaalkii shalay ka dhacay halkaasi ayaa wararka la helaya waxay sheegayaan inuu sababay geerida ku dhawaad 5 ruux oo dhinacyada dagaalamay ah iyo 15 ruux oo dad shacab iyo dhinacyada dagaalamay isugu jira oo dhaawacyo ay soo gaareen kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka ee degmada Beled Xaawo iyo degmada Doolow sidoo kale intay dagaalka uu socday ayaa tira madaafiica waxay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmada Beled Xaawo waxaana dadka ku sugan degmadaasi ay warbaahinta u sheegeen in dhowr madaafiic ay gubeen guryo ku yaala degmada oo dad barakacayaal ay deganaayeen dadka ku dhaqan degmada Beled Xaawo ayaa sheegaya in maanta xaaladda ganaansho ay dareemayaan marka loo eego dagaaladii shalay dhacay hase ahaatee weli waxay dareemayaan cabsi taas oo ku aadan in gudaha iyo banaanka degmadaba lagu arkayo ciidamo kala duwan oo ka tirsan dawladda lagana baqayo markasta in dagaalo ay dhacaan saraakiisha ciidanka dawladda ee ku sugan gobolka Gado qaybna ka ah dagaalka ayaa guula sheegtay halka wasiirka warfaafinta ee Jubbaland injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed uu sheegay inay iska difaaceen weerar kaga yimid dhinacyada dawladda haddaba maxay tahay sababta dagaalada ay kaga dhaceen magaaladaasi magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado waxaa tan iyo bilowgii sanadkan 2020 iyo dhamaadkii sanadkii 2019 gaarayay ciidamo kala duwan oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo tababaro kala duwan lagu siiyay gudaha dalka iyo dibadiisaba dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xilligaasi ujeedada ay lahayd waxay ahayd inay isballaarin ku sameeyso gudaha gobolkaasi Gado si halkaasi ay uga xooganaadaan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya qorshaha la doonayana waxay tahay isballaarintaasi kadib in laga adkaaday ciidanka maamulka Jubbaland haddii ay diidaan wada hadallo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay la furaan siyaasadda dawladda Soomaaliya ayaa waxay tahay inay gacanta ku dhigto maamulada kala duwan ee dalka taasi oo ay ka soo horjeedaan xubnaha maamulka Jubbaland waxaana ay keentay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku fakarto inay la wareegto awoodda guud ahaaneed ee gobolkaasi Gado si loogu qasbo maamulka Jubbaland inay isdhiibaan ama ay qayb ka noqdaan qorshaha dawladda ciidamo kala duwan oo la sheegay inay ka kala tirsan yihiin ciidanka Haramcad Gorgor iyo Danab ayaa la sheegay inay qayb ka ahaayeen dagaalkii shalay ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado waxaa jirta baqdin xoogan oo soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Beled Xaawo iyo sidoo kale degmada Mandheera dawladda Kenya ayaa aad u hadal haysa shalay dagaalkii ka dhacay Beled Xaawo sababtuna waxay tahay magaaladu waxay ku taalaa dhanka xuduudda ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya waxaa kaloo arinta hadal haynta keentay ay tahay in saraakiishii ugu badneed ee Jubbaland ay shalay ay gaareen degmada Mandheera ee dalkaasi Kenya iyagoo ka cararay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado Kenya waxa ay inta badan ay la safan tahay maamulka Jubbaland waana taasi mid keentay in dawladda federaalka ay faragelin ay ku eedeyso iyada oo marar badan la sheegay in ay u yeerayso xubnaha mucaaradka iyo kuwa Jubbaland lana geenayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya warar hoose aan helayna waxay sheegayaan in shalay diyaarad ay ka dushay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose taasi oo siday xubno mucaarad ku ahaa maamulka Jubbaland kuwaas oo la geeyay magaalada Nairobi iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha dawladda Kenya ay kala hadlayso xubnahan dawladda Soomaaliya lama sheegin ilaa iminka in xog rasmi ay ka hayso bixitaanka xubnahaasi oo la geeyay magaalada Nairobi
walaaca ugu badan waxa uu hayaa shacabka ku dhaqan magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera waana laba magaalo oo soohdin wadaaga waxaana qoysaska ku nool ay wadaagaan waxbarashada kala iibsiga badeecadaha isu gudubka Soomaaliya iyo Kenya iyo arrimo kale waxaa shalay saacado badan istaagay isu socodka gaadiidka iyadoo ay barakaceen dad degan inta u dhaxaysa mandheera iyo beled xaawo kadib markii ay ku dul dagaalameen ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland qof ka mid ah dadka mandheera ku sugan ayaa sheegay in cabsi ay soo wajahday taasi oo ku aadan in magaalada gebi ahaanba ay kala istaagto isu socodkeeda dhanka waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa kalaba waxaa sidoo kale dadka ay sheegeen in xaalka mandheera iyo beled xaawo iyo dhinacyada dagaalamaya marka loo eego uu yahay mid kaliya lagu joojin karo wada xaajood laga yeesho raadinta xal aan xabad ahayn haddii taasi la waayana ay colaada ay sii kordhayso waxaa la isweydiinayaa kadib dagaalkii beled xaawo maxaa xiga ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee jooga gobolka Gedo iyo ciidanka kale ee ay dowladda federaalka ku xoojisay isla markaana ay geysay gobolkaasi dabayaaqadii sanadkii 2019 iyo bilowgii sanadkan 2020 ayaa ka saaray beled xaawo ciidanka wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland kadib dagaal saacado qaatay oo magaalantii shalay ka dhacay magaalada sida ay baahisay warbaahinta Kenya waxyeelada iyo guuldarrada ciidanka Cabdirashiid Janan shalay gaartay waxaa xasarad uu ka dhaliyay deegaanada dhaca xuduudda dalalka Kenya iyo Soomaaliya sida magaalada Mandheera iyo deegaanada ku dhowdhow oo dagaalka uu saameeyay waxaana la isweydiinayaa waxa xiga dagaalka beled xaawo Jubbaland waxay ka kooban tahay saddexda gobol ee kala ah Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Gobolka Gedo oo ka kooban 6 degmo oo kala ah Doolow, Luuq, Beled Xaawo, Baardheere, Ceelwaaq iyo Garbaharey. Jubbaland waxay gacanta ku haysay oo kaliya degmada Beled Xaawo. Saddexda degmo ee gobolka Jubbada Dhexe ee Bu'aale, Jilib iyo Saakowna waxa ay ku jireen guud ahaan gacanta dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Taasi waxay ka dhigan tahay in Jubbaland aysan maamulin 3 meelood 2 ka mid ah gobolada ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Jubbaland kadib dagaalkii ka dhacay degmada Beled Xaawo ee sababay in laga saaro ciidankii daacadda u ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan. degmada Ceelwaaq waxaa jooga ciidan taabacsan gaashaanle sare Cabbaas Ibraahim Gurey oo loo badinayo inuu taageero uu ka helo dowladda Kenya isla markaana la jaal uu yahay madaxweynaha Jubbaland ee aanay weli aqoonsiga dowladda dhexe helin. haddii ciidanka Jubbaland ee ka dagaalamay beled xaawo ay u dhaqaaqaan dhinaca Jubbada Dhexe oo ka dhigan in dagaal ay la galayaan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo maamula 3 degmo ee gobolkaasi waxay muujinaysaa in dagaalkaasi uu yahay mid aan ku ekaan doonin Jubbada Dhexe balse saameyn doona gobolka Jubbada Hoose oo ah midka kaliya ee hadda uu maamulo dowlad goboleedka Jubbaland. wargeyska Daily Nation oo ka soo baxa magaalada Nairobi waxa uu daabacay in xasarada ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay tahay halis xoojinaysa awoodda Al-Shabaab. dagaalka ka dhacay degmada Beled Xaawana waxa uu ku tilmaamay inuu yahay mid dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyadu ay isdagaalayso. haddaba maxaa xigi kara mar haddii xaaladdu ay sidaasi ay tahay? aragtidaada ka dhiiba qaybta hoose. markana aan eegna dagaalkii ka dhacay dhawaan magaalada Dhuusamareeb. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iminka u muuqatay in gacanta ay ku dhigtay 3 ka mid ah maamul goboleedyada dalka. waa kan koowaad waa maamulka Koonfur Galbeed oo uu ku sugan yahay madaxweyne iyaga taageersan Cabdicasiis Laftagareen. waa maamulka labaad waa Hirshabeelle oo madaxweyne uu ka yahay Maxamed Cabdi Waare oo saaxiib la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya walow mararka qaarkii eedeymo u jeediyo taasi oo ku aadan in looga baxay ballamo kala duwan oo horey loola galay. maamulka saddexaad ee sida rasmiga ah ay gacanta ugu dhigeen dowladda federaalka waxa uu noqonayaa Galmudug oo dhawaan gabi ahaanba ahlu sunna ay ka tanaasuleen siyaasadii deegaanada Galmudug waxaana iminka Galmudug madaxweyne ka ah Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. ahlu sunna in gabi ahaanba ay ka tanaasusho siyaasadii deegaanada Galmudug waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iminka ay si buuxda ay gacanta ugu hayso deegaanada Galmudug waxaana kaliya ku ciriirin kara madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyo. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u muuqataa mid ku guuleysanaysa marka la eego siyaasadda doorashooyinka soo socda haddii deegaanadaasi ay ka helaan xubno iyaga matalaya waxaana ay ka dhigan tahay dowladda federaalka inay ka guuleysatay xubno kala duwan oo ka soo horjeeda nidaamkooda iyo siyaasadooda oo ku sugnaa deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedyada dalka. tusaale ahaan waxay ka taqaluseen oo ay ka tanaasuleen madaxweynihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo si aad siyaasadda u lafaguri jiray madaxweynihii hore ee deegaanada Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo mar saaxiib ay noqdeen balse markii dambe ay isku qabteen arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo sidoo kale madaxweynihii ka horeeyay ee deegaanada Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dowladda federaalka dagaal ay ku qaado.
waxaan filayaa inaad ogaateen macluumaadyo kala duwan oo arrimaha gudaha ku saabsan. guud ahaanna waa naga intaa barnaamijka falanqaynta qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.